haween baa hooda shiirta haween baa sama u xiisha haween baa qaran hagaagta haween baan hadima beerin hogyo buuran la eedo halbowlaa horumarkeeno iyaga weeyaan hubaale erkii nabadaynu joogno la'aantood lama helenba la'aantood lama helenba بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت قيمها قدرين حشمة مدن ميل كستو جوجتان يا هول كستو هيسان بوحن دلنا هاي كسو لواده برنامجك عدك هوينك واد كداوتان تلفزيون كقرب جمهورية الصومالية برنامجك عدك هوينك وحن كسو مرتقابنا زهرة أحمد محمود زهرة هلجن برنامجك وحاو موضوعي سنقن دونا دورك أي كل هايين هوينك وقتي هلجن ما يدي هذا برنامجك وحو كهالي دونا وتارجت كسي ساري دونا هلجنكي هواك هدي دينا عرقة لغا هالي هواين كنا دينا عبيكا جرين هلجن كيكي جرين ان سهرة اياي نوغو ورحمي دونتا سيدي ايو دعضي هلجن ايدي اي كغيب قلان كهوينهان waxaan ku soo dhaweyn doonaa marka hore barnaamijka sahra halgan sahra ku soo dhaw barnaamijka aad baad mahadsan tahay waan dhawahay sahra baanta hadii taariikhahaagi aanu gali lahayn iyo hawlahaagi kulay in badanna waanu haynaa in badanna waa la sii wada hayaa dhinacii fankana waxbaad ku leedahay waad ku jirtaa balse hadaba barnaamijka waadaama halgamayadi ka hadlay dhinacaagii fankana xoogaa uu soo gali doonaa wax badan oo kaga hadashay baa jirta oo kaga qayb qaadatay oo aad kaga hadashay hadhow toolna gaar ahaantaadna qaybta fanka si gaaran oo nuu geli doonaa insha Allah wixii barnaamijka ka dambeeya balse maanta doorkii aad ku lahaydeen ka haween ahaan ayaad ka hadli doontaa adiga oo matali doona haweenka Soomaaliland ku sugan halgankii ay ku lahaayeen maadaama barnaamijka codka haweenku adiga kugu soo casubay maanta halkoogida aad ka joogto bal waxaad warbixin hadaba naga siin doontaa waqtigii halgamaadi taariikhdii aad ku soo biirtay goormay assalaamu calaykum dhamaantiin baad salaamaya daawayaasha TV-ga qaranka waxaan u maleynayaa waxaan noqonaysaa barnaamijkii ugu horeeyay aan TV-ga qaranka kaba duubaba ay noqonaysaa waanad ku mahadsantahay inaad soo xasuusto digu soo casuunto horta halganku uu noocyo badnaa waqtigii dalka la soo galay baan ku biiro deenan dhalinyaro baan hayo meel kale kaga biiri karayn waajibaad qof wal oo muwaadina saaraabu ahaa oo aan maxay heedeen dad xil gooniya ka saarnayn waxaan ugu biiray sideed wax u qaban kartaa sideed inamadiinan u caawin kartaa sideed u dhiiri gelin kartaa dumarku way galeen sifa noocyo badan bay u galeen waayo maadaama raggii ay halgankii iyo dagaalkii qorigii wada qaateen intii joogtay dumarku waxay u galeen maxay hayday ubadkii bay hayeen waraashinkii bay karinayeen oo maxay hayday dharkii bay meedayeen oo de familiyada dhawaay badbaadinayeen oo halganku uu noocyo badnaa laakiin anaga kayagu wuxuu kaga duwanaa de waxaan u galay anu neersan maan ahayn laakiin waan heesi jiro fankana waan jeclaa marka fan ahaan iyo neersan ahaan baan kaga qayb galay isla meeshaan waan ku bartay geedeeb waan ku bartay sida wax markaan arkay baahida jirta loo qabo cid wax dhayda ayaan inaan ku idhi walaal waxa di tustaa sida wax loo dhay aan ku caawiye marka wuxuu igu yiri sidaan wax loo dhayaa oo saasa bandage-ka loo xidhaa baasmaga loo xidhaa sidaana halkaana seeda iyo xididkaad kala ilaalinaysaa meeshii xidideed aragtay green ayaad ka siinaysaa qofka marka tamar darra ku dhacdo glucose aad ka siinaysaa marka sidaasaan ku bilaabay isku marun baan bilaabay heesta iyo dhaawaca ana marka hore fanka ku jiray oo qofka fanka jecel aan ahaa qofna waa qof fanka u soo gala inuu de maxay ahayd wax ku noqdo magac ku raadiyo hanti ka helo aniguna qofna waa qof fanka laftiisa jecel oo de waxaan dhiigiisa ku jirto marka anu fanka waan jeclaa marka waxaan halkaasaan kaga soo biiray oo aan heestiyo iyo dhaawacba waday waxaan kaga duwanaa un hablaha kale waxa laga yaabaa inay dhaawac dhay jirtay
inina ay maxay heesi jirtay laakiin anigu waxaan sameeyay waxaan jaanisaan helay aan labadaba sameeyo laytusa sida wax loo sameeyo dabadeedna taas ay fududeysay inaan halgan ka qayb galo laakiin dumarka qofna kama maqnay marka fanka markii aad gashay aad dhinaca fanka kaga qayb qaadatay isla meesha sidaad kaga qayb qaadato markii horeba fanka iyo ay noqotay dhinaca dhaymaha dhinaca fanka waad ku dhiirigelin jirtay markaa fanku wuxuu ahaa waxa ugu qaalisan ee dadku hawlgeli karaan oo xabadu waxay xabadada rido qofun bay dilaysaa ama waxun bay ku dhacaysaa laakiin fanku wuxuu ahaa wax meel walba gaaraya codku wuxuu ahaa abwaanadii ba sameeyay Allahu naxariistay intii badneed way dhinteen heesaha sameeyayo gabayada sameeyayo gararada sameeyayo maxay haydeen dhiirigelintu waxay hayd qayb aad iyo aad u muhiim fanka marnaba lagama maarmo colaad iyo nabadtoona lagama maarmo fanku waa wax qaaliya wuxuu baahan in la qiimeeyo la xanaaneeyo la koriyo la kobciyo wax walba sidaad geedka u korinayso biyaha ugu waraabinayso ayuu fankuna suugaanta iyo horumarka iyo u baahan yahay Sahray ma xasuusanta heestii ugu horeysay ee istiri ku dhiirigelin ragiida markii aad joogtay dhinaca halganka heestii ugu horeysay aan qaado waxa ii dhiibay Allah yarxamee Ismaan Askari geedeblo waxaan ku joognay Allahu naxariistay Ismaan Askari Allahu naxariistay Yuusuf Xaaji Aadan Allahu naxariistay Maxamed Yuusuf Allahu naxariistay Tiifow Allahu naxariistay Umar Shariif ni looran jiray inteedaas geedeblo joognay iyo aniga dhamaantood boo dhinteen Ilaahay wada naxariisto marka Ismaan Askari baa heesii dhiibay heesta waxa codeeyay Tiifow may waxa codeeyay Nuur Shariif Tiifowna uu yiitumay heestaasi waxay ahayd dawladiyo Israaciil dadkii lahaa waxa markaas uu ka sheekeynay Ismaan Askari inaynu inagu Soomaalinimadan la sheegayay dadka lagu qoqinay kuwii keenaynahay wuxuu dawladiyo Israaciil dadkii lahaa inaanahay balse laga duudsiyay dabargooya laysiiri doqon baan ogaanine hala galo dagaalada hala bixiyo dunyada wax bayaan dib loo dhigan heestaas ahay dawladiyo Israaciil dadkii lahaa inaanahay balse laga duudsiyay dabargooya laysiiri doqon baan ogaanine dawladiyo Israaciil dadkii lahaa inaanahay balse laga duudsiyay dabargooya laysiiri doqon baan ogaanine hala galo dagaalada hala bixiyo dunyada wax bayaan dib loo dhigan hala galo dagaalada hala bixiyo dunyada wax bayaan dib loo dhigan dabadyal kala dhigay nacad bandareemine iyo bandambirahay dabadyal kala dhigay nacad bandareemine hala galo dagaalada hala bixiyo dunyada Sahray dadku inta badan fanka siyaabo kala duwan baabay ku soo garay laakiin aduu halgan baabad kaga qayb qaadatay bal haddaba ma xasuusataa waxyaabihii ugu adkaa ee kula kulmay waqtigaasi halganka
waxyaabo badan baan xasuustaa waxaan xasuustaa waxa dee dagaalka ku jira dhalinyaro badan waxaan xasuustaa markii ugu horeysay maalin maalmaha ka mid ah waxay maxamed yuusuf xaaji aadan iyo allah naxariisto cismaan askari way guri adeer deena dhalinyaro abana oo la diranayay waxaad noo soo qaadaa baytarigan oo maxaad ku farsanaa BBC-dan ku dhageysanaynaa marka cismaan askari baa wuxuu sitay record yar dabadeedna haye baan ku iro baytarigii baan soo qaaday baytariga waxaa ku jirta ICD marka ICD waxay igaga daadatay diricii ma garanayo marka jirkayga alxamdulillah ma gaar waxay guraday jirka ku dhicday way daldaloolin lahayd masa waxa maxay haydayaan maalintii dambe markay diricii iyagoo garadii halkan ka dhacay xagga dambana ka dhacay xabadaas oo kaliya tan oonaysta cid u xamaanaysiinaysa ma jirto marka inama Hargeysa imanayay baan ku wareede diriciiba waxay kaga daadatay wax ku jiray baytarigaas aan odayaasha u geeyay Allah u naxariistay Cismaan Askari Yuusuf Xaaji Aadan iyo Maxamed Yuusuf iyo Tiifo yaan u geeyaday dhariga soo qaad Hargeysa diriciiga garad heshaan marka googaradii baan wareejiyay oo ku beegay xaqii dalooshay ee diraca hay'abay gulaadeen way soo waayeen waxay ii keeneen macawis iyo garan gacmo dheera wuxuu ahaa dharkii ugu adkaay qof haysto waxyaabaha iigu daraa ay ka mid ahayd waxa jirtay inama badan baa jiray laakiin saddex inan baa memorygayga aan weligay ka baxaynin inan baa wuxuu igu yidhi xabad baa ku dhacday marka waa la keenay uu taahaya marka waxaan uu la taahayo ma garanayo show xabadu gudaha ugu dhacdo dhiig baa gudaha kaga socda markaas yiri walaal Sahraay hadaan koob shaaha cabo oon dhinto luxudkan qabanaya koobka shaaha sida lagu helayaa way adag tahay waxaanu deganay meel military faqash ka guureeno waxaanu soo daydaynay daasad baanu daydayno daasadii baan dabadna meeshii ka soo helay sonkor baan inama ka soo yar nasiya kun sonkortii baa la deedeeyaa oo maxay shaahi baa la deedeeyaa inankii baan shaahi u soo helay dabadeedna dhuxul yar oo halkan taalay xaaba yar oo halkan taalay baan ugu soo kariyo oo keeno wuu cabay markuu cabay buu yidhi waxaan igu yidhi markii hore luxudkan qabanaya hadaan maxay haydayaan aan koob shaaha cabo oon dhinto walaal wuu cabay iyadoo kulul ayuu cabay wuxuu لا إله إلا الله محمد رسول الله حق سرب حق دين عاصم بوجهته أنا قف دين تمانا رجع وإنك يجوري ويسك ساحبة واحد شري إن كلا الشاه مركو عبيب السيلة أنتوا عبيب بلهون هدان كوب كاشها عبيب اللحد كان قمنايا كوب كيشها مركان أوكيني وداسد ما نوكيني داسدان تمانا جورجرتا أيا نوكينو مركو كوب كيشها دمي ayuu badana awjiif soo sumbeeyay way ka baxda inaan kale waxa jiray in qoor gaab leeyahay Allah u naxariistay maalin baa jirtay diyaaraddu xoog u rushaysay geedib la dhowr iyo 40 nin oo dhaawac ayay way dhaawac dishay iyada shicib iyo wax walba dabadeedna meeshii baan ka guurnay markaa dooxa waxa loo soo agdegi jiray hadii wax soo dhacaan si aan faliidku dadka u dilno wixii ku soo dhaca ciidun bay geli jireen dabadeedna waxaan ku qasbanaanay inaanu ka guurno ماشي inankaasi dhabarkay kaga dhacday marka paralysis buu noqday laakiin meel xanuunaysa ma jirto inanka meesha ka guurno subaxii baan u nimid sii wal saaray xalay toolad waxa soo yara rugmaday waxaan u baahanayn meeshan laga qaado halka la dhigo dawaan dhowr qof la helo dhalinyaro halkaas oo kala dooxa bartankiisa geedaa ku yaalay lagu shirinayo inta go'san ku waxaan u baahanahay nin mujaahido dhaawacan oo aan cagiisa qaadi karin marka paralysis kan xataa ma garanayaano inaad ila qaadaan hay'abay yiraahdeen waxa soo maray meeshii intaanay maxay haydayaan inamadii iman nin looran jiray sarkaal ahaayo ina janan biyo looran jiray iyo gabadh cibaado la yiraahdo anu meesha wada deganay ka guurnay cibaado meeshan wada deganay dabadeedna waxaan ku yiri wuxuu doonayay in qoorgaamin halkan laga qaado xaliba dad ku soo rogmaday sida inamari way kula qaadnay way la qaadeen markaas way la qaadeenoo meeshii uu doonayay inaan dhigno ayaanu dhignay inanka kaadida in laga soo daayay mooyane kama iman jirin markaas markii la dhigay uu damqaday markaas Allah tallaa Sahraay
walaal dadaan garanayn bay qaaday san ku anaa si fiican ku dhigay horta hal lagu jiifiyay waa la jiifiyay show intii la sii dhigay ay naftu ka baxday marka wuxuu ogaaday in janabiyay nin weyn buu ahaa wuxuu yiri waninka kaadida baa ka timid uu dhintay san ku waan hagaajinaynaa oran uu dhintay suudi walaal baaralays buu hayo haday kaadidu qofka ka timaado uu dhintay inamadii dhalinyarada ahaa ee u tagay ayaan ku noqday masi kulaal waanu ku ilowne raali naga hawsan ku war ma dib male uu dhintay kaaleelaas inamadiiba waa dhalinyaro waxay u diyaar garoonayeen Hargeysa dagaal ku soo baxaan san ku kaaleelaas haybi yiraahdeen marka waxyaabo ay soo maray aanan iloobi karin ku yaro kale isna bi kale looran jiray gacanta madoobaatay gaan garib uu qaaday xidid baa go'ay waxaan ninkan meel dhiig ka socdana ma lahe muxuu la taahaya dabadeedna waxaan ku yiri bal cid baan u doonayaayo waxa la fadhiyay inaan baasha ku tari leeyahay inaan kala gardaran leeyahay ayaa agtooda fadhiyay masaan ku yiri bal cid baan u doonayaa waan soo noqday isagoo la aasay ana cid u soo waayay marka waxay ahayd marxaladahaas de kuwaan weligay ma marigay ka dhamaanayn weeyaan waxaad ka warantay waxyaabo qalbiga bedelaya aad iyo aad dhibaatooyin fara badan oo la soo arkay kamid hay ma jireen haweenyagu intay qoriga qaateen ragga raaco ka qayb galay dagaaladii ma ka xasuusatay dumar badan baa jira inaan magaceeda loogu magac daray cali dheer loonan jiray inan kale waxa jirtayna hablahan ka sii garanayo Fatxiya la yiraahdo marka aan garanayo aan xagan geedib la joog laakiin markii dambe aanu talownay hablihii hadii jeer ku aan ka because nin waliba meesha joogu ka shaqeynayay qofna qof ma ahayn mu wareysanaynin laakiin hablo badan baa jiray oo kamid ah laakiin inta garashadayda labada hablood man garay inaan way dhimatay inaan noo sheegan jecel Fatxi way noo sheegay way joogtaa oo qoriga qaadatay hablo badan baa jiray waxa jirta hadaba maanta in badan bal 27 sanadkii 27aad baa soo galeednaayo maanteenu xuseynay dib soo noqoshadeenii ka soo noqonay waddanka la isku guuray jiray Republic Soomaaliland maanta loo xusayo waqtigii kala soo noqotay xorriyadeeda Soomaaliya bal ka waran intaas sano ee la xusayay Sahra saameynta ay kugu yeelatay waxaan nasiib u yeeshay anigu inaan joogo 18 May Burco inaan taagnaado ka heeso waxay ku jiraan maxay ahaydee ETV-yada ku jiraan waxaanu joognay Berberaanu joognay anagu dadkii Berberaada ciidankii Berbera qabsaday baan kamid ahaa waxyaabaha noogu yara naxdinta badnaa ee aan ilooba ahayd markii aanu Berbera galay ayaa anagu 3 cishaan ka dambeeyay dhaawac baanu sidnay markii aanu galay anagu daalan baanu galay masaaleeydi maxay ahaydeen aniga masaaleeygu yiri waxaan ku meelan ku yaraan astaan u baahan qol baa leeyay qol qabow baa leeyay inaan baa hurda waan agtiifsaday inankii guubaan ka jiito waan iska seexday markii dambe waxaan ogaaday qolku inuu yahay qolkii meedka deemka maanta dilay qolka meedka seexa ma seexan karo inanka Cabdikariim baa la yiraahdaa imka wax xogayaha dawladda hoose Berbera weeyaan Berberu haystaa waxyaaba ugu qosolka badnaa bay ahayd wuxuu igu yiri Cabdikariim waxa laga dadkaasi meel go'doon ay ku jireen iyagu way xidhnaayeen Berbera dadkii ku jiray dad ciil hayo cabudnaa bay ahaayeen annaguna waxaanu ahayn dad xagan joogo xora oo xornimadii iyo hadalkii iyo noloshii caadiga ay dhadhamiyay Cabdikariim baa wuxuu yiri ballan baan leeyahay walaal kabahaaga yamaanaysi kabahaygii baan amaanaysi intii uu ku maqnaa ballantiisa ayaa waxa yimaaniga fanaanadii ma haystaan inanta dhaawac dhaysun bay haystaan ayaa waxa yimi fanaaniin ka timi Hargeysa Allah naxariisto sareeyay iyo kadleeyay way badnaayeen ma siiraadin Sahra joogta Berberiyada in la heesi doonta anoo dhakhtarkii reer Korasta jooga la yiin waa la soo kixiyay kaba kale ma haysta moogtay waxa xiray kabii Cabdikariim iga tagay masraxaano saaran oo kabii ku heesaya ayuu arkay suintu markan ka soo dagay walaal maxay ahayd fanaanad baad san ku rahaa walaal marka si walaal kabahaaga xidho maxay ahayd fanaanad ku aan mooday inta waxyaabaha waxay ahayd marka ka bacdi waxaan tagnay Burco waan joognay intii anigu jaaniskan helay Burco waan joogay markii la goosanayay inta ay 18 May jirtayna meel kamida adduunka baan
ayuun baan joogay dalal badan aad bay ugu mahadsantihiin had iyo jeer jahaaliyadaha Soomaaliland ama Australia ha ahaato ama Mareykan ha ahaato ama Canada ha ahaato ama Yurub ha ahaato mararka qaar baan aydin may kaliya isku mari jiray 3 dal oo aan ka heesay example Mareykan waxaan ka soo heesay Edmonton oo Canada halka ugu dambaysa waan mido mudaharaad laga dhigay London baan ka qayb galay waan ka tagay oo Holland baan ka heesay waan ka tagay oo hadana waxaan ka qayb galay maxay ahayd tii Faransiiska marka aad baan u nasiib badan qof nasiib badan un baan inta ka qayb gala oo hela intii ka dambeysayna maxay ahayd dalka horta marka la yiraahdo dumarku way soo halgameen run ahaantii waan soo halgamnay siyaabo kala duwan aan aniga ku sheegay aan soo halgano laakiin dalka waxaan ku leenahay xuquuq baan ku leenahay ma raggo kaliyaati xuquuq inay ku yeeshaan dalka muwaadin baan ahay wax baan dalka gashaday malihi wax dalka ka badan hana la siiyo laakiin waxaanu xaq u leenahay wixii aan dalka gashanay inaanu helno inaanan oran intaanu gacmaha laabano oran waan soo halgamayo waxaan doonayaa wax ilaa maalintan Soomaaliland la goostay ilaa maanta 2 filim baan sameynay oo mid stranger la yiraahdo oo Al Jazeera laga soo daayay documentary kale oo Soomaaliland aan sameeyay calankayga waxaan geeyay Jaynaan geeyay oo intaas oo gobol ah Japan baan geeyay oo intaas oo gobol ah Taiwan baan geeyay Europe baan geeyay meel aanan calankayga geeyin meel aan xataa dawladda Soomaaliland tagin ayaan hadan dumar ahay calankayga geeyay waxaan soo kordhiyay dhaqankeennii iyo hidaheennii baan soo kordhiyay oo maxay qofka banaanka in dumarnimo loo arka maaha waa in tacabkiisa iyo wuxuu tabcaday lagu dhiiri geliyo oo lagu garab galo maanta intaasoo nin oo Soomaaliland dara ayaa dalka wax ka samaysay nin walba meel baa la siiyay nin walba dhul baa la siiyay oo ku tabca oo wax ku soo saaray maanta xataa waxaan anigu kala yahay meelan hida dhowr ka sameeyo waa wax qurux badan adduunyadii oo dhan Mareykan baa laga soo bookin gareysanaya hay'adihii baa soo bookin gareysanaya waxa dadka kaga duwan tahay waxa weeyaan dhaqankaaga dadka isku diin baa noqon kartaan isku af baa noqon kartaan isku color baa noqon kartaan laakiin isku dhaqan ma noqon kartaan waxaad kaga duwan qof waliba markuu hida dhowr soo galo arko ayuu yiraahdaa wow waxaan ma idin kaale waxa ii suurta galiyeen adduunyada aan tagayay markaan tago Japan iyo China iyo markaan tago waxay ku geeyeen museumyadooda meesha hidiyaha Taiwan halkay maxay haydayeen dadka ku soo dhaweeyaan bay ku geeyeen waxaan aniguna sameeyay meel dadka lagu soo dhaweeyay in dumar uun la arka maaha in tacabka la tixgeliyaan jecel waliba tacabka dumarka maanta waa chance baan u helay inaan gudbiyo fariintayda waana markii iigu horeysay interview siiyo 27 sano 27 ka sanaba ha 27 ka sanaba waan soo halgamay maanta waxa laga yaabaa inaan mar 3 kalmadood inaan i weydiisay wariye aan duubay baan u maleynaya xasuustayda laakiin waa markii iigu horeysay TV-ga qaranka aan soo fariisto ee aan barnaamij ka duubo haweenku waxay u baahan yihiin in la dhinac galo in la isgarab taago ma nihin dad aan waxba garanayn waxbaanu garanaynaa waxbaa la bartay dhakhaatiir bay noqdeen looyaray noqdeen baayac mushtari bay noqdeen waxaan u baahanahay in si maxay haydayeen ka duwan sida ragga iyo reer hebelka loo eegayo in dumarka loo eego oo xuquuqdooda la siiyo mid siyaasadeed ha ahaato mid muwaadinimo ha ahaato mid waalidnimo ha ahaato mid baayac mushtari ha ahaato waxaanu had iyo jeer tabanaynaa inay maxay haydayeen in goonina laga dhigayo laakiin dad ku istaagayo oo ku joogsanaya maxay haydayeen intaas ma nihin waayo waxaanu u tabcanaynaa waa dalkayaga waxaana lagaga qaadayaan waa kafan yar laakiin qof waliba wuxuu isleeyahay $20 gaari qof waliba wuxuu isleeyahay tacabkaaga isagoo meel wanaagsan oo aan laga rarin oo lagu lahayn bari ka guur kaga tag ayuu isleeyahay tacabkaaga sahra waxaan ku sii dhownahay gabagabadii barnaamijka bal maxaa aad oran lahayd bulshooyinka ku daawanaysa maanta waxa loo diyaar garoobay 18 May sanadkii 2020 diyaar garowgeedii baynu ku jirnaa waana qabsoomaysaa waqti ka horeysay inay qabsoomaysaa oo waatan laga soo wareysay Ramadaanta awgeed maxaad bal dadka ku dhiirigelin lahayd oo fariin lahayd horta maalin waliba waa maalin Ilaahay waxay wax walibana qiimo ku leeyihiin isfahanka iyo in la isku afkarto bilbu Ilaahay biliisa ka fadala
waxaynu u baahannahay xariifnimo kumaynaan keenin nabadaynu haysano xeelad kumaynaan keenin ilaah xaalqal basharka ee ina abuuray ayaa ina waafajiyay inaynu nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka helo haddii la yidhi 15 laga dhimka example markaad Mareykan iyo eegto maxay ahaydeen Europe iyo maxay ahaydeen Australia dadku waxay sameeyaan weekendka ugu xiga ugu dhow markaa ayay sameeyaan sabtidii axada duruufta ku kalifaysa maanta duruufinimay kalimfinay waajibaadka ilaahay inagu leeyahay bisha rabaad naga saaran ayaa ina kalifay oo maxay ahaydeen 15 hadii laga dhigeystay 10 hadii laga dhigo waxay ka qurux badan tahay in dadkoo wada faraxsan oo afturan ay maalinta soo wada baxaan ay wada qoslaan halka maalin la wada maxay ahaydeen sooman yahay oo karaahiyo aynu shaqaysan lahayn ay ahayd waxa weeyaan waa fikir wanaagsan waan ku raaxsanay cid walo soo jeedisay annaga hidda dhowrahaan habeenka 15 kaanu ka dhignay qudayadu oo aanu maxay ahayd dadkaygu si ay noola farxaan oo inoola gabagabeeyaan maalin qurux badan ay u noqoto 18 May baan ku wada jirnaa ee laga dhigay 15 dadkeenana waxaan leeyahay wixii waajibaad wixii naga saaray inaynu ta ilaahayna ixtiraano maalinta Soomaaliland loo gooyay ee dadka ilaahay inoogu tala galay inay madax inoo noqdaan ay soo go'aamiyeen inaynu ku tixgelino inaan ka hor imanin maxay ahaydee ayaan farayaa waxaan leeyahay Soomaaliland aniga adiga weeyaan Soomaaliland ma kala lihin waxaan soo saaray imika hees alxamdulillaah bihi naga simay afiya dhaqan iyo midab abiyadiin alxamdulillaah bihi dad isjecel naga dhigay arligeena hooyana asal waa maguuraan iyo dhaxal adowgeen wastaanta gaare laynagu aqoonsado Somaliland ani iyo adiga weeyaan isku duubni wadaareed idilkeen rag iyo dumar inagoo dhan weeyaan naga simay afiya dhaqan iyo midab abiyadiin alxamdulillaah bihi dad jecel naga dhigay alxamdulillaah bihi naga simay afiya dhaqan iyo midab abiyadiin alxamdulillaah bihi dad jecel naga dhigay arligeena hooyana asal waa maguuraan iyo dhaxal adowgeen wastaanta gaare laynagu aqoonsado arligeena hooyana asal waa maguuraan iyo dhaxal adowgeen wastaanta gaare laynagu aqoonsado Somaliland ani iyo adiga weeyaan isku duubni wadaareed idilkeen rag iyo dumar inagoo dhan weeyaan Somaliland ani iyo adiga weeyaan isku duubni wadaareed idilkeen rag iyo dumar inagoo dhan weeyaan
naga dhigay dalka wada ilaashada alxamdulillaah yeebidii naga dhigay uliyadii alxamdulillaah yeebidii dhargaraato naga dhigay dalka wada ilaashada alxamdulillaah yeebidii naga dhigay uliyadii ummadsabaha doontoon garta ee xaniqinu isku ursan baane allahayowna taageer aday taada noqotaa ummadsabaha doontoon garta ee xaniqinu isku ursan baane allahayowna taageer aday taada noqotaa somalilan ani iyo adiga weeyaan isku duubni wadaareed idilkeen rag iyo dumar inagoo dhan weeyaan somalilan ani iyo adiga weeyaan isku duubni wadaareed idilkeen rag iyo dumar inagoo dhan weeyaan waxa weeyaan waa Somaliland baan leenahay aad bad ugu mahadsan tahay inaad maxay hayday isoo casuunto waxaan u malaynayaa maanta dalka waxa haysta madaxweyne garanaya halgankii wixii aanu qabanay hadaanu dumarnahay waananu diyaarna waanu nahay wax ka badan aanu qabano laakiin aanu jaaniskeeda helo ayaanu uga fadhinaa hadii Allah awood leh ogolaado daawadayaal haddaba waxaynu eegi doonaa Foosiye Siciid Cige doorka ay ka qaadatay u diyaar garowga maalinta munaasabada 18 May ee ay Somaliland kala noqotay wadankii la isku oran jiray Soomaaliya oo ku beegan bisha shanaad 18 haddaba Foosiye waxay u diyaar garowday qaabkay ugu sameyn lahayd dharka calanka Somaliland oo ayadu buufisay yada iyo dumarkii kale ee ay wada shaqeynayeen waad aragtaan dharkii way waran yihiin haddaba bal Foosiye waxaan weydiin doonaa dareen intee leeg buu kugu keenay markii aad halaabtan calankeena Somaliland aad sameeysay Foosiye والله منay waad mahadsan tahay shucuurtaydu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay aad iyo aadna way u kacsan tahay anigoo kaga qayb galaya munaasabada 18 May dharkan Somaliland ee maxay ahayd arkaysid ee anagu gacantayda ku sameeynay waxa weeyaan u diyaar garowga maxay ahayd maalinta 18 May si loo xidho oo daladayadu u xidhato oo bulshadeyntu u xidhato oo maxay ahayd ay dadweynaha Hargeysa ay u xidhaan oo ay maxay ahayd uga faa'iideystaan calanka Somaliland Foosiye dharkan intii aynu barnaamijka ku guda jirnay baad sameeysay oo aad ku jirteen waana 3 kalar waa cadaankii akhtarkii iyo casaankii bal haddaba dawada sunta sidee baad ugu kala qaybin kartaan muna waa mahadsan tahay waxa loogu kala qaybinayaa waxa weeyaan dhexda waad aragtay waa cadaankii waxa weeyaan maradu waa wada cadaan ka bacdina kalar maxay tahay xarig baa lagu kala xidhayaa oo si maxay tahay dhexda loogu baneeyo oo cadaanka loogu baneeyo labada dhinacna ay u noqdaan maxay tahay midabadii akhtarkii iyo casaankii marka xariga lagu kala xidho ee sida loogu buufiyo waxa weeyaan testigii lagu rido baaldigii baa lagu ridayaa dabadeedna suntii baa la gelinayaa qayb dhinac baa la gelinayaa dhexduna cadaankaas ay ahaanaysaa calanka Somaliland aad ka sameynaysa dharka intee meelad bad isleedahay geey marka laga tago intii aad geen jirtay ma ka ballaarinaysaa dadkii hore aad u geen jirtay waan ka ballaarinayaa oo waxaan doonayaa inaan kaga qayb galo oo aan sida aan gobolada kale ama degmooyinka kale aan ugu gudbiyo haddii xitaa ifan la iga soo dalbado maxay tahay Yurub to kale waan dalabka waan sameyn karayaa 18 May maxad ka qayb qaadanaysaa 18 May waxaan kaga qayb qaadanayaa dharkaygaas anigoo tarabuunka maraya insha Allah midmillahi kariin madaxweynahana ka codsanaya inuu maxay tahay oo dalada maxay tahay iyo anagaba nacaawiyo oo insha Allah adiguna munay waa mahadsan tahay
والسلام عليكم aad baad ku salaamaya adiga iyo kameramaanka iga duubaya kamarada waa mahadsantihiin foosiye siciid cige oo iyadu ah gabadh samaysay shaqo abuur dhinacna uga diyaar garoobaysa maryihii amaba dharkii calanka Soomaaliland iyada oo buufisay oo calankii Soomaaliland waad aragtaan sida ay noogu soo sharaxday noogu buufisay dumarku siday ugu diyaar garoobi lahaayeen u xiran lahaayeen duruuc shiida iyo shalmado shiida u noqon lahaayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa foosiya dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii codka haweenka oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka codka haweenka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa oo waqtigeega noo soo hurtay Sahra Ahmed Maxamuud Sahra Halgan oo nu ku wareysanay waqtiyadii halgamaayadii barnaamijka waxaan ku soo qaadanay mowduuca doorka ay ku lahaayeen haweenka qaranka Soomaaliland waqtigii halganka intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka waa habayntii soo diyaarintii iyo waliba soo jeedintii anigu Abdi Ibrahim Dhakhtar dhinaca kamarada waxa si weyn iga caawiyay oo aan u mahadnaqayaa inta Ilaahay ka sokaysa Cabdi Casiis Cali Nuur waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sahra aad baad mahadsantahay adinka aad waqtigaaga noogu soo hurtay aad sharaf bay tahay haween baa qaran hagaagta haween baan hadima beerin ogyo booran leedo halbowla horumarkeenu iyaga weeyaan hubaal erkii nabadaynu joogno la'aantood lama heleen la'aantood lama heleen